barnaamijka maanta waxaa marti iigu ah qoraa cabdiqaadir abuukar macalin mursal oo ah qoraa dhowaan soo saaray buug loogu magac daray daryeel bulsho. cabdiqaadir, sharaf bay noo tahay aniga iyo daawadayaasha ku xiran barnaamijka in aad nagala qayb qaadatid. ugu horreyn, maanta waxaad marti noogu tahay buuggaaga iyo cilmigan ilaahay kugu ilhaamiyey ee cilmi nafsiga ah. waa maxay cudurrada ku dhaca maanka iyo magacyadoodii wixii aad af soomaaliba ku heshay, iyo sawir naga sii aniga iyo daawadayaasha. marka laga hadlaayo cilmi nafsiga oo qaybta maadiga marka laga hadlaayo waxay ku urursan yihiin buug la yiraahdo DSM Diagnostical Statistic of Mental Illness, qaybtiisa shanaad oo Mareykan uu leeyahay, iyo buug kale oo la yiraahdo CIM macnaha Classification of International of Mental Illness marka qaybtiisa tobanaad. kaas wuxuu hoos tagaa hay-adda caafimaadka adduunka. marka labadaas buugood ayaa waxaa badanaa lagu sharaxaa xanuunada la helo, astaamahooda iyo waxa ay yihiin oo dhan. marka waxay u kala qaybiyaan laba qaybood oo cilmi nafsiga marka la yiraahdo. qayb waa nevrose, waxa la yiraahdo nevrose waa xanuuno group ah oo marka la yiraahdo sida tag trouble of general anxiety waxa la yiraahdo, oo waxaa soo gelayo macnaha xanuuno ilaa dhowr ah oo macnaha ay ka mid tahay phobieska, ay ka mid tahay anxiety-ga, waxaa ka mid ah TOC waxa la yiraahdo trouble obsessional compulsive waxa la yiraahdo. marka waxyaabahaas oo dhanaa soo galaya. marka nevrose-taas waxa weeyaan qofka waaqica uu ku nool yahay caadi ugu jeedaa ugu nool yahay, laakiin perceptionka siduu wax u arkaayo ayaa mararka qaarkood waxa waaye wax ka badan wax aan dhicin ayuu marmar ka welwelaa, ama wax dhacay ayaa dhibaatooyin ku hayo. marka qaybta kale waxaa la yirahdaa psychosis ama psychos, kaas micnaha waxa waaye dadka badanaa wuxuu kusoo baxaa marka ay qaan gaaraan 15, 16, 17 ilaa 25. schizophrenia ka mid ah oo qofka markaas hadal iyo codad buu maqlayaa ama dareemo kale uu leeyahay. marka qofkaas macnaha ama xanuuno kale oo personality trouble of personality la yiraahdo, oo bipolar waxa la yiraahdo, oo marna uu kale uu leeyahay, wuxuu leeyahay belief waxa la yiraahdo, wuxuu ka baxaya waaqic uu ka baxaya qofka macnaha waxyaabo kaaga hadlaya adiga aan arki karin oo adiga aadan sheegi karin. kaas marka waxa waaye psychosis-ka dhaqaatiir ayaa daawo loo qaataa si looga yareeyo waxyaabahaas, maqalkaas, codadkaas iyo waxyaabahaas. laakiin kan kale anaga hadda aan badanaa ka hadlayno ama buug aan ku sharxaayo waa qaybta nevrose ah, oo run ahaantii kaas asaga terabiyoon loo sameeyo qofka oo xanuunada depressionka iyo xirirka saas oo kale. marka labadaas qaybood. qaadir, aad iyo aad u mahadsan tahay. qaybo badan oo dhinacaas wacyigelinta arrimahan cilmi nafsiga ku saabsan bulshadeena xaqiiqdii way u baahan tahay. dhammaan daawadayaasha ku taxan barnaamijkaygan weydii qoraaga waxaad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka. waxaana idinka sii codsanayaa in aad la wadaagtaan asxaabtiina si uu wanaagga u faafo. waa anigoo ah cabdifataax baana caymuun oo idinkaga sii tegaya kulanti dambe oo xiise leh iyo barnaamij kan kasii xiise badan iyo qoraa.